Kambale xarunta dalka Uganda waxa lagu qabtay xaflad balaaran oo lagu maamuusay markii la aasaasay hoggaanka SSC waxa xafladaasi ka soo qayb galay jaaliyada ku dhaqan magaaladaasi Kambala ee ka soo jeeda gobolada SSC waxa warbixintan ka soo diray magaalada Kambala Cabdulqaadir Kaarshe xafladan oo ay soo qaban qaabisay jaaliyada SSC ee ku dhaqan dalkan Uganda laguna maamuusay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay dhismaha hoggaanka mideynta iyo badbaadada SSC ayaa xalay lagu qabtay magaalada Kambala ee xarunta dalka Uganda. Xafladda ayaa waxa goobjoog ka ah dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada SSC iyo guud ahaan Soomaaliyeedba waxaana dhammaan waxgaradkii siyaasiyiintii iyo aqoon-yahankii madasha ka hadlay ay ku nuuxnuuxsadeen muhiimadda ay leedahay midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyagoo mas'uuliyiinta jaaliyada SSC ayana meesha ka hadlay ay ka dhawaajiyeen inay markasta u taagan yihiin ilaalinta midnimada Soomaaliyeed iyo soo celinta kala dambeyntii iyo qarannimadii ummadda Soomaaliyeed. SSC waxay caan ku tahay hormuudka Soomaaliya iyo halganka Soomaaliya ay mar walba u soo tafaxaydato siday madnimo iyo qaran ay u raadin lahayd tii koowaad ma aha oo soo bandhigta tan caawa ma aha waligeed way soo wadi jirtay oo wax looga bartay inay maaragtay halganka Soomaaliya iyo midnimada Soomaaliya oo ka shaqeeyaan waxaan halkan kale aan ka taageerayaa midaynta shirka kale inay Soomaaliya cagaheeda isku taagto insha Allah ilaahay baanu ka rajaynaynaa hindisaha wanaagsan ee ay madaxda SSC ee aqoon-yahaniintu soo abaabuleen inay hagayaan maamulkaas u soo hindisay inuu Soomaali isu keeno oo sharaftii iyo karaamadii Soomaaliyeed baadi doono sida SSC caanka ku ahaan jirtay in sharafta Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed baadi doonto ka soo qayb galayaasha xafladan balaaran ee ay qabteen ururka la yiraahdo SSC waxaanu soo dhaweynaynaa dhammaan ciddii qaabishay ama ajiibtay casuumadda aan u fidinay ee halkan ku sugan walaalayaal waxaan u malaynayaa wax kasta oo hadal raggii hore ayaa dhameeyay laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex arrimood arrinta koobaad waxay ku saabsan tahay wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta ay adduunka kaga sugan yihiin meel kasta ay joogaan ama ay ku siman yihiin waxaan kala dardaarmi lahaa laba shay inay fuliyaan waxbarashadu waa shay aad iyo aad u muhiim ah waddankeennina hadda muddo 20 sano ayaynu bannaanka ka nahay waxaan aad u jeclaan lahaa dalalka aynu joogno ee Kenya Afrika ama East Africa inaynu kaga faa'iideysano waxbarashada si aynu dadkeenna iyo dalkeennaba ugu anfacno taas waa iga dardaaran wiilasha iyo gabdhahaba aan farayo waxaana ku farayaa magaca Soomaaliyeed waxaan kaloo u soo jeedin lahaa waxaynu dhahay dad muslima oo ku abtirsada diinta islaamka dhaqamo aad u fara badan ayaa lagu bedelmayaa markii la soo galo waana ka digayaa in gabadh kasta iyo wiil kastaaba ay ilaawaan hiddihii iyo dhaqankii iyo Soomaalinimadii uu deeqayaa ki damqanayaaye duxmidaan lahayn baa jiro tiisa daayacaaye dardaaran bay u noqotaa nin ragi doqooni yeelkiye ducadayda eebbo ajeeb dawlad qarameed markaas dabaalaba rag baa si dalbinayay madambaadalo hadegin dacarta noqoshan dagaal gala ama diida oo nabad inoo daaya ducadayda eebbo ajeeb dawlad qarameed dalan dool madaayaan dul joogtaa washiyo ceebe dubba weeye waa lagu dushaa doqon walaalkeeda waa tii duqaydii la dilay shalay nin doorkiya
ducadayda eebba wajiib dowlad qarameed dowladii dadaal bay rabtaa dowga loo maray idinkuna daleel baad dhigteen waa la daayacaye dahab iyo badrool duugan baa loo dan leeyahay ducadayda eebba wajiib dowlad qarameed kasakow khudbadihii mas-uuliyiinta waxaa kale oo barbar socday dhallinyarada gaashaaman oo ku labisan dharka hiddaha iyo dhaqanka kuwaas oo madasha ku soo bandhigay riwaayado gabayo iyo weliba ciyaaraha qoobka ciyaarka ee ay Soomaalidu dhaqanka u leedahay waxaana dhammaan dadkii ka soo qayb galay aqoon-yahano culimo iyo ismaba ay meesha ka dhawaajiyeen oo ay isku wada raaceen in loo baahan yahay midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed taasoo ay ku adkeeyaan carabka inay tahay muqadas loo baahan yahay Cabdulqaadir Kaarsho Somali Channel Kampala